shacabka reer Puntland waxaanu ku wargelinaynaa inuu wali socdo dhibaataynta iyo caburinta shacabka reer Laascaanood iyo duulaanka lagu wado gobolka Sool haddana laga soo wado Hargeysa iyo Bariga Burco Maleesiya beeladyo loogu talagalay inay xoog ku sii joogaan gobolka Sool shacabka reer Puntland waxaanu ku wargelinaynaa gudaha iyo dibadda in jiritaankooda iyo dowladnimadooda lagu yahay duulaan laba geesood ah oo ay subahaysanayaan maamulka Hargeysa iyo kooxda argagixisada Al-Shabaab sidaa darteed waa inay garab istaagaan dowladooda iyo ciidamadooda geesiyaasha ah ee har iyo habeen u taagan difaaca dalkooda iyo dalkoodaba waxaa dowladda Puntland hambaliyo iyo bogaadin u diraysaa ciidamada difaaca dowladda Puntland guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa hawlgalka ka fuliyay Marraje ee Buuraha Calmadow kuna xasuuqay argagixisadii laga soo abaabulay Hargeysa iyo Bariga Burco iyo daljirrada difaaca uga jira gobolka Sool iyo Cayn inankahin waxaan leeyahay Sool uma aadan dhalan kamana tarin doontid Puntland iyo maamulka Hargeysana cidda micisata gaalo Soomaali waa kala taqaan dadkii Somaliland u dhashay oo dalka Liibiya laga soo taariibiyaasha ahaa oo Muqdisho tagay oo dad Soomaaliyeed oo badan bay ahaayeen halka la soo keenay ka bacdina diyaarad looga soo kireeyay Muqdisho hay'adda IOM iyo ay soo kireysay oo dadkii reer Hargeysa ama reer Togdheer ama reer Galabo diyaaradii laga soo celiyay oo lagu soo celiyay inay ka tagin dadkoodii Puntland lagu soo celiyay Puntland ay u ogolaatay inay ka soo degaan mar labaad markii diyaaradii loo diiday dadkeedii inay maartay laga soo celiyay Hargeysa muddo 24 saac hay'adda OIM iyo dowladda Puntland ay wada hadal kula jidhay war dadkaas diyaaradda hay'adda iyo dowladda Puntland ay soo kireysay Soomaaliya inay ogolaadaan dadkoodii si ay caruurtaas hooyooyinkoodii iyo walaalahood maartay ay ugu tagaan marka halka waxa ka muuqata Hargeysa maamulka Hargeysa iska daa cid kale wixii Soomaaliya taga ma caruurtooda aatee inay tahay dad Oromo ee xaqooda ay ka tahay Ethiopia waa ogol yihiin Oromo waa ogol yihiin cid kale waa ogol yihiin laakiin heer ay hadda dadkoodii diidaan maamulka hadda ka talinaya buu gaarsan yahay marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadka ay nagu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee Puntland haddana dadkoodii dib 24 saac ka hadal dabadiis ay maanta dadkoodii la joogaan ay Hargeysa ay joogaan marka waxaan oran karnaa arintaas inay tahay ummadda Soomaaliyeed maamulka hadda Hargeysa jira mid aan qolana tan u ahayn kuwa u dhashay aan tan u ahayn kuwa kalena aan tan u ahayn ummadda Soomaaliyeed aan tan u ahayn waxaan inta ku darayaa sida wasiir Cabdi uu sheegay waxaa jira inamo 53 ah dhalinyaro ah Liibiya laga keenay laga soo dejiyay Muqdisho kulligoodna ah reer Hargeysa ahaa reer Somaliland ilmahaas waxaa laga soo saaray diyaarad magaalada Muqdisho markay dul taagnayd garoonka Hargeysa baa waxa la yiri lama ogola waa Soomaali meeshay ka yimaadeen hal geeyo diyaaradda hay'adda IOM baa nala soo hadashay waxaan ku niri ku soo celiya Garowe ayaan ka soo rognay habeen iyo maalin halkaan ku haynaa 24 saac waxaan inta bariyeynay Muuse ka bariyeynay ilmaha yaryarka hooyooyinkood in loo celiyo oo guriyahooda laga soo celiyo qaarkood hoteeladan ugu tagana way xanuunsanaayeen miidiyaha kilibkii laga duubay wuu yaalaa waa siinayna waan u diidnay Garowe intii joognaan cod ka qabanno sababtoo waxay nagu yiraahdeen sidii gabadhiina qorna ahayd baan jeel wada galeynaa annagu marka Muuse uga baqayna baa waxa ka caayay muxuu ahaa kala leexanay miidii waxaan ku faraxsanahay inay shalay galab degeen xalina ay hooyooyinkood iyo guryahooda ay tageen taas waxaan leenahay waxa weeye dhibaatada ka jirta iyo garashada ka jirta Hargeysa ay tusaysaa inay yaro 4 sano jeel magafaa ku jiray markii inta Hargeysa uu tago laga soo celiyo hadana oo waliba xanuunsan waa nasiib darro Puntland waxay u sheegaysaa shacabka Soomaaliya iyo Hargeysa Muuse mas'uuliyadda Hargeysa ma qaadi karo odaga Master Bean la yiraahdo tiyaatar u sameeyay talaha weydiinina hadda isku sii daysaan biixi iyo Master Bean waa baabacaysa Puntland si naxariis leh garasho leh waxa idin leedahay is aruuriya dad waxaad ahaydeen loo haweynaa
ummadda Soomaaliyeedna maqaam sare uga jira in taladiina ay ku soo ururto usaa iyo Mr Bean waa talo weydiisaan oo daba fariisataan idin ma leeyahay annaga idin ah annaga garasho idin ah waxaan leenahay taasna waxaan leenahay wax garadkii Soomaaliland ha badbaadiyaan Soomaaliland intaasaan ku daraynaa waxaan u sheegaynaa wasiirka cadaaladda Sheikh Khaliil waxaan isku hayno waxaan isku haynaa annaga Soomaaliland ilaah baa yiri iyo Ingiriis baa yiri oo annaga noo sheego koofil baa na soo diray haddaan Soomaaliland nahay oo sool qabsada waa xuduudeeni waa Ingiriis nagu yiri bay leeyihiin annaguna waxaan leenahay ilaah baa nagu yiri meesha sool idinka iska leh dadkayga baa degan ilaah baa na dejiyay hadda sheekh hadda diinta qaanid ilaahay Ingiriis ha sii sheekhan intaasaan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh